maxay tahay dhacdada ka careysiisay bulshada reer Pakistan ee uu sameeyay sheekha caanka ah ee Zakir Naik. intaan u gudagalin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad ma soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto maasan. sheekha caanka ah ee u dhashay dalka India ayaa waxaa lagu marti qaaday Arbacadii la soo dhaafay xarun lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah gaar ahaan gabdhaha oo ku taala dalka Pakistan. laakiin in badan oo kamid ah bulshada reer Pakistan ayaa waxa ay dhaliileen qaabka uu sheekha ula dhaqmay gabdhihii halkaasi ku sugnaa kadib markii uu isaga tagay goob masraxiyad ah oo ay isugu soo aruureen ama ay u soo istaageen si ay wax ugu jeediyaan. markii uu meesha tagay sheekha Zakir Naik gabdho meesha joogay ayaa u soo dhawaaday hase yeeshee dib ayuu ugu joogsaday wuxuuna u sheegay in ay ajaanib kale yihiin oo waxyaabaha qaar aysan habooneen. sheekha ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay arrintan gudaha dalka Pakistan. muuqaal baraha bulshada la soo galiyay ayaa aad looga falceliyay kaas oo muujinaya gabdho asturan oo soo galaya masraxa kadibna waxaa la arkayaa sheekha isaga oo goobta isaga tagaya. munaasabadan waxaa soo abaabulay xarunta lagu magacaabo Pakistan Sweet Home Foundation taas oo caawisa gabdhaha agoonta ah. markii ninka barnaamijka hogaaminayay uu masraxa soo saaray koox gabdho ah, sheekha ayaa arrintaasi ka xumaaday muuse ku faraxsaneen in intaas oo hablaha hal mar masraxa la soo wada saaro. markiiba waxa uu bilaabay in uu ka fogaado markii ay soo bateenna oo uu dareemay cariiri goobta ayuu isaga baxay. waxa uu yiri muxram la'aan lama socdo. dad badan oo ku sugan Pakistan ayaa u arkay tallaabadan sheekha uu qaaday in ay tahay mid aad looga naxo qiyaalina ah isla markaana hoos u dhigaysa haweenka. wari u dhashay dalka Pakistan oo la yiraahdo Usama ayaa la wadaagay dadweynaha muuqaal kooban oo arrintan ku saabsan wuxuuna ku dul qoray xildhibaan hore ee Pakistan Zamhad Khan ayaa gabdhaha goobta masraxa ah keenay si loogu muujiyo sharafta ay mudan yihiin. laakiin Zakir Naik wuxuu ka tagay masraxa isaga oo aan muujin xushmad. Zakir Naik wuxuu yiri waa muxram la'aan. Professor kale oo u dhashay dalka Pakistan ayaa isna ka falceliyay muuqaalkan soo galay baraha bulshada oo ku saabsanaa sheekha oo isaga tagaya goob gabdho ay soo buux dhaafiyeen. muuqaal baraha bulshada la soo dhigay ayuu ku yiri waxay ahaayeen gabdho yaryar oo agoon ah. Zakir Naik wuxuu u haystay in gacanta oo lagu salaamo iyo madaxa oo la taabto ay tahay wax ixtiraamka ka fog, balse diinta Islaamka ay ka hor imaanaysaa. muxram waxaa loo isticmaalaa haweenka waaweyn ma ahan gabdhaha. halkan su'aal ma jirin oo ku saabsan xiriir jireed. Islaamku miyuu ka soo horjeedaa ixtiraamka gabdhaha agoonta ah ayuu hadalkiisa raaciyay. saxafi kale oo u dhashay dalka Pakistan laguna magacaabo Abbas Nasir ayaa isna muujiyay cabashadiisa ku aadan mowqifka Zakir Naik wuxuuna ku qoray barihiisa bulshada waxaan ka yaabanahay sababta Zakir Naik loogu casuumay Pakistan. Zakir Naik markii hore waxaa casuumtay dowladda Pakistan waxaana soo dhaweeyay Rana Mushid. Zakir Naik ayaa hadda waxa uu ku nool yahay dalka Malaysia. bishii Agosto 2019 booliska Malaysia ayaa waxa ay mamnuuceen Zakir Naik in uu qabto kulamo ay dadweynaha isku arkayaan. waxaa sidoo kale su'aalo badan oo saacado qaatay weydiiyay booliska Malaysia. warbaahinta reer galbeedka ayaa aad u buunbuuniyay sheekadan ka dhacday dalka Pakistan ee ku saabsan in sheekh Zakir Naik uu ka baxo goobta kadib markii ay gabdhaha soo buux dhaafiyeen.